xirfaduhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha aasaaska u ah nolosha qofka bani'aadanka taasi oo uu qofku ku maareeyo noloshiisa iyo sidoo kale qoyskiisaba dad kala duwan ayaa iyagu ku shaqaysta xirfadahooda gacanta si ay u noqdaan kuwa isku filnaan kara isla markaana isku dabari kara dadyoga kala duwan ee xirfadahani ku shaqaysta waxa ay ka mid yihiin kuwa inta badan subax walba ugu kalaha goobaha qaar si ay u soo helaan waxyaabaha aanay ka maarmi karin sida quutal daruuriga shaqooyinkuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee uu qofku u baahan yahay dadyoga kala duwan ayaa iyagu bartay xirfado gaar ah hase yeeshee qaarkoodna xirfaduhu waxay u noqdeen kuwo iyagu maskaxiyan ay u aasaasan Ibrahim Daheeye waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal isaga iyo koox gaar ah oo la shaqeysa waxa ay sameeyeen xirfad gaar ah xirfadaasina waxay tahay dhagaxaanta la qoro isla markaana guryaha lagu dhiso kuwaasoo siyaabo kala duwan ay dhagaxaantaasi u qoraan tanina waxay ka mid tahay shaqooyinka ay iyagu aasaasteen ama ay samaysteen si ay u noqdaan dad isku filnaan kara isla markaana u heli kara wixii ay ku noolaan lahaayeen Ibrahim Daheeye iyo sidoo kale kooxdiisa gaarkii waxa ay dhagaxaantani ka qoraan deegaanka Xaliimaale ee ka tirsan degmada Boon halkaasoo ay dhagaxaanta ka soo saaraan waxaana ay dhagaxaantani ka soo saaraan dhul ay iyagu qodaan isla markaana ay inta badan u adeegsadaan qalab kala duwan dhulkaasi dhagaxaanta ay ka soo qodayaan ayaa ah deegaan aad uga fog magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal dhagaxaanta marka ay dhulka ka soo saaraan ayaa haddana waxay sameeyaan in ay qoraan isla markaana ay u sameeyaan si qurux badan oo farshaxan ay ku dheehan tahay Ibrahim Daheeye iyo kooxdiisu marka ay dhagaxaantani ay soo saaraan isla markaana ay qoraan waxay soo saaraan gawaarida si ay u keenaan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ugana ganacsadaan geesta kale Ibrahim Daheeye waxa uu ka warramayaa dhagaxani iyo qaabka ay u qoraan iyo sidoo kale qiimaha ay dhagaxani siiyaan marka ay habeeyaan isla markaana ay soo qoraan ka hor inta aanay keenin magaalada Boorama halkan nimka joognaa wada aragtaano cagaf baa la geliyay 15 saacadood cagaf baa la gashay cagaftaasina waxay ku shaqaynaysaa lacag adag oo saacadeedu tahay $70 15 saacadood bay ka shaqaysay inta yar ee aan siiba badnayn muuqata marka waxa aan cagafta ay kharashka u galina waxa dhagaxa cad ee quruxda badan leh iyo day ka soo baxaya markaan meeshii sida la yiri oo qodaalkayga nagu yar dib batay baan day cagafta isku kharash garaynay marka waxa weeyaan dhagaxu oo liga arkaya dan walba iga yaala quruxdiisa iyo cadaankiisa wada arkaysaan waxa weeyaan naqshadani mid aan marka hore caadi ahayn oo macna farshaxanimo ku jirta laba nooc oo dhisma qaabkan oo ah kii solarka oo kale qaabkii solarku sameystaa oo kale dhagax yar oo asbaalka u galiya dhulkaas u galiya dhagax as ama madow ama huruud quruxdiisu markaas ay soo baxaysaa noocan kalena uu dhisma oo isna halkan ka bilaabay halka madowga dhagaxa yar yar sida kan oo kale iyo dhagax yar yar dhulka u galiya dhagax yar oo aan weynayn oo 12 sentiya iyo galgalaya marka ay imika gidaarkii ma joogno oo waa ka xagan wax garabkii qabanaya ileen ma jireen saasoo u dhismaya quruxdiina ku soo baxay mid ka yar qiimo badan uu jira oo intuu doono waxa weeyaan baabuur bal halkan kaga raraynaa iskaroga qaadaysa $600 bay qaadaysaa xabada dhagaxa 30 senti baa lagu geenayaa Boorame $1 oo xaraha dhagax dhismeeya waxa jira sida idin muuqata guryo badan oo dhagaxaantani lagu dhisay kuwaasoo iyagu ah kuwa muuqaal ahaan soo jiidanaya indhahaaga tanina waa xirfadaha gaarka ee dadka qaarkii ay ku shaqaystaan walow ay jiraan xirfado kala duwan oo dadku
ay iyagu ku maareeyaan noloshooda si ay u helaan wixii ay ku noolaan lahaayeen. dadyow kala duwan oo ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo u badan dhalinyaro ayaa iyaguna waxa ay bilaabeen inay noqdaan kuwo shaqooyin abuurta. shaqooyinka la abuuranayo waa kuwa loo baahan yahay in dadku ay ka wada faa'iideystaan maadaama inta badan ay jirto shaqo la'aan baahsan, balse shaqadu inta badan waxay u baahan tahay in la abuurto. waa Nuux Kadiye, barnaamijka Somali Cable iyo maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.